beegsaday maqaaxida Hillaac UK oo ku taala meel aan ka fogeyn hoteelka Maka al-Mukarrama. dad fara badan ayaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana sidoo kale wararku ay intaas ay ku darayaan in qaraxani oo markaasi uu burbur lixaad leh iyo waliba waxyeello aad u fara badan u geystay dhismayaashii goobta ku yiilay sida hoteelka Maka al-Mukarrama iyo meheradaha ku dhow sida farmasiga Gacal, hotel Wardheer iyo laba maqaaxiyood oo maqaaxida Hillaac ay ka mid tahay. wariye Maxamed Ibrahim Macallimo oo ka mid ah wariyeyaashii hore ee BBC-da ayaa ka mid ah dadkii qaraxani ka badbaaday, waxaana bartiisa Facebook uu ku soo qoray in alle uu ka badbaadiyay qaraxii caawa. wariye Maxamed Ibrahim Macallimo oo faahfaahin ka bixinaya sida ay wax u dhaceen ayaa waxa uu yiri waxa aan wada fadhinay aniga iyo saaxiibkay Xasan Maxamed Daahir. markaliya ayaan waxaanu maqalay xabado, inta aanan xabadaha isweydiinayn ayaa waxa dhacay buu yiri qarax dhulgariir oo kala ah. ma qiyaasi karo buu yiri sida ay wax ahaayeen, laakiin waxaan rumaysnahay buu yiri in qaraxu uu ina gelgelay. uura madow iyo boorkii gidaar ka burburay ayaanu bilownay inaanu haahaabano. qaraxu waxa uu ka yimid buu yiri dhanka Hillaac UK iyo Maka al-Mukarrama ay iska galaan ee dhanka bari ee hoteelka. Macallimo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri burburkii iyo holacii ayaan soo dhex maray. dadka intiisa badan waxay u carareen albaabka dambe, laakiin aniga khatar ayaan u arkay. waayo aragnimo hore darteed waxaanan aaday dhanka burburku saameeyay oo aan soo dhex maray gidaarkii burburay oo ciidda aad ku gubanaysa buu yiri kulaylkeeda. markaan imid laamiga Maka al-Mukarrama iyo bannaankaba waxa aan soo dhex maray meydad, gawaari gubanaysa, dad caawimaad u qaylinaya oo aan waxba u tari karayn. meydadka aan anigu bannaanka ku soo arkay 15 ayaan ku qiyaasaya oo u badnaa dad wadada marayay ayuu yiri Macallimo. si kastaba ha ahaatee qaraxani ka dhacay magaalada Muqdisho ayaana la ogeyn tirada rasmiga ah ee ku dhimatay iyo waliba dadka ku dhaawacmay qaraxani. wixii warar ah ee ka soo kordha qaraxaasi waxaad kala socon doontaan Bulqaas Media House.